sanadkan iska tijaabi nasiibkaaga, laga yaabo inaad ku baastid heshid lotteryga. Soomaalida boqolkiiba 2 ayaa ka hesha sanadkii. haddii 50,000 oo qof uu ka baxo waddan ka soo baxo, waddankaasi lama qaadan doono 5 sano soo socotay. sida Nigeria oo kale, Afrika kaliya ayaga ugu jiro, waxaa laga yaabaa 50,000 qof inay kasoo baxeen. sidaas darteed waa laga xiray. wadamada kale laga diiday oon loo ogoleyn oo sidaas oo kale waxaan iga tusi doonaa videoga dhexdiisa. la soco. السلام عليكم أصحابتي. halkan waxaan idinkugu soo bandhigayaa qaabka loo buuxsado lottery ama baqtiyaa nasiib. waa wax lagu yimaado Mareykanka si free, lacag la'aan, adigoon waxba laga qaadin. marka u baahantahay sida aad ku buuxsan lahayd, waxa u baahantahay inaad Google ku qortid DV Lottery. sida arkaysid halkaas ku qor DV Lottery. website-dan dhan aad arkaysid waxa halkan ka dambeeyo dhan intaan kan ka ahayn waa lacag ka qaadeen, waana been si lacag inay kaaga xadaan. balse kan dawladda cid lacag loogama qaato, cidnana been loogama abuurto. waa dawladda iska leh. waxaa ku garanaysaa inay dawladda leedahay si aadan kuwa kale ugu qaldamin. waxaa ku qoran state gov ama gov. taas gov macnaheedu waxaa waaye governmentiga kaliya ay isticmaali karo. kaasaa ku dhufanay. markaa ku dhufanay waxaa aad wuxuu ku dhahay welcome ku qoran. mar hadduu ku qornayn welcome, micnaheedu waxaa waaye weli lama furin website-ka. waa inaa haddaa October 3 aa imaadi ilaa October 10 wax furan ma lahan. intuu ku tusayaa maba geli kartidba. balse welcome haday ku qoran tahay wuu furan yahay, cid walbaa gali karta, buuxsan karta. waqtiga la furo waa hadda. waqtiga la furo waxay ahayd October 18 2017, 18 October 2017 sanadkan. wuxuu xirmayaa November 22 2017, November 22 2017. marka waxaa u baahan tahay ka hor inta aadan gelin inaad iska diyaarsatid sawirka. badanaa sawirka waa la iska diyaarsadaa, uu ku dhibaya waxaa loogu talagalay page-ka. halkan haddaan furo, halkan oo ka bilaabma haddaa furtid, wuxuu u baahan yahay inaad 30 minutes ku buuxsad waxaago dhan. haddaadan 30 minutes ku buuxsan waa 30 daqiiqe wuu isxirayaa website. ka hor marka intaadan gelin waxaad diyaarsataa sawirkaaga aad gelin lahayd loogu talagalay. sawir qaabka loogu talagalay jirto. halkan ku dhufo. halkan markaa ku dhufatid, halkan uu kaaga soo baxayaa sawirka soo eeg. halkan ku sii dhufo, wuu ku sheegayaa meeshan aad ku furmayso. sawirka waa kan. halkan choice photo ku sii dhufsanaysaa. sida arkaysid sawirka waa inuu sidan ahaadaa. waa sidan markaa gelinaysid, saas inuu ahaadaa waay. inuusan qof qoorta qoloocnin, inuusan ahayn qof la gees ah. sawirka waa inuu saas u toosnaadaa. tusaale ahaan haddaa sawirkayga oo kale haddaa iska soo geliyid, tusaale ahaan sawirada aan loo baahnayn aan tusaale ahaan kuu siinayaa. waxaa jira sawiro badan aan loo baahnayn, sida kan oo kale haddaa iska geliyo, waa kana ma galayo. sababta ma galay sawirkaasba maba loogu talagelin inuu meeshaas galo. waa sawir action saa u fadhiisid. waxaa u baahan tahay sawirada passport lagu galo inaad soo geshid. haddana isla ayagii haddana wuxuu ku dhahayaa wuu galay, but haddana wuu ku diidayaa inuu galo. because markuu dhawaaqo wuxuu ku dhahayaa sawirka waa inaa hagaajisaa, meesha ku hagaajisaa, ku aadis. sababtoo ah sawirkan dhagiyalkan ay jiraan, madax halkaasoo jira. hadda yar sawirkiisaan ku baraaweynaya oo ii soo diray visa u buuxiyay, oo qaraabada iyo aan nahay oo saaxiibada asxaabta ka mid ah. marka sawirkiisaan hadda hagaajinayaa. halkaanaan u keenay, saanaan dhahay inta ku aadisay waa halka inaa ku aadisaa, kadibna ka inaa isticmaashid, saas ugu soo dhaweysid wejiga. kadibna waxaa leedahay waa ka uu qaatay. kaliya waxaa u baahanta marka sawirka uu ku qaatay, halkan iska dejiso. meeshan save ay ku qoran tahay ku dhufo. marka save ku dhufatid, sawirka halkan ku save gareyso, wuxuu ahaado meelahan ku save gareyso. kadibna waxaa dib ugu laabataa, uu ku save gareysan sawirkii, meeshaadii u laabo, page-kii ku laabo. page-kii ku laabatay. hadda marka waxaa ku diyaarsan sawirka. waxaa u baahantay inaad meesha gashisa ku buuxin lahayd application-ka. formkii aan galaynaa, halkaas aan ku qoraynaa sida ay ku qoranta xarfahaas 3AV TM. kadibna waxaa leedahay submit. markaa tira halkaan ku qoraysaa.
si aa u ogaatid haddaa xarfa iska qaladid si aa ugu soo laabatid malahan mar labaadan ma buuxin kartid hal mar bisa lagu ogol inaad buuxisid haddaa ku celcelisid xitaa applicationkaaga jawaab xitaa waxaa lagu soo celinaa oo aadan u qalmin balse nasiibkaaga si aa u heshid waa inaa marka hore aa ka fiirstaa magacaa ku buuxsanaysa isuu yahay magaca awowgaaga ka bilaabaysaa magacaagaa ku xijinaysaa soo hadduu magacaaga sayid cali uu yahay mise maxamed nuur uu yahay waxaa u baahan tahay sida uu yahay inaa u qortid hadduu naaneys uu raacsan yahay hadhihin sayid intana cali ha ku qorin laba magacay noqonaya soo hadduu magacaaga sayid cali lagugu yaro sayid cali ku qoro kadib halkaana aad middle xasan soo dasmin waa 3 magac kaliya hadduu ku weydiiyo ninka oo interview kaa qaadaya imtixaanka waxaa leedahay sayid cali magaciiga allah shahaadadeedana ku qoran laakiin shahaadada iskuulkaaga see kugu qoranta kugu qornaato sida si hadhoodii aa u heshid caddeyn kadibna waxaa aadaysaa halkan meel meesha ku qoran tahay waa rag iyo dumar midkaa tahay halkaas ku dhufo kadibna hoos iska aad hoos markaa aadid birthday-gaaga ku dhufo sanadkaa bishaa dhalatay maalintaa dhalatay sanadkaa dhalatay haddaa rabtid waa ku dhufan kartaa haddaa ka weynta da-daad adiga taqaanid meesha aa ku dhalatay muqdisho haddaa hargeysa ku dhalatay hargeysa ku qor haddii aadan aqoonin meesha ku dhalatana waxaa ku dhahdaa meeshaas click c daas way tirtirmaysaa meesha kaas micnaheed maxaa lama yaqaan meesha ku dhalataba laakiin saas haddaa tiraahdo waa inaa ku qortaa magaalada ku dhalatay kadibna wadankii aadaysaa Soomaaliya ku dhalatay halkaana soo aaday hoostan su'aalaha waa inaa iska fiirisaa si aysan kaaga qaldamin halkan waxaa ku qoran yes maxay uga qoran tahay sababtoo ah waxaa tahay qofka xaqa u leh inaa buuxiyo haddiidan xaqa u lahayn waa inaa sheegtaa ma tahay qofka xaq u leh yaa xaq u leh waa wadankee xaq u leh okay halkaana ku aaday intaa kugu diyaariyay waxaa xaq aan u lahayn inay buuxiyaan waqtiga nasiibkan Bangladesh Brazil Canada China Colombia Dominican Republic El Salvador Haiti India Jamaica Mexico Nigeria Pakistan Peru Philippines South Korea United Kingdom except North Ireland United Kingdom UK waa Wales Scotland England North Ireland so intaasba marka laga reebo except North Ireland haddaa tahay waa buuxsan kartaa balse haddaa Scotland aad degantahay gobolkaas misena England degantahay London misena aad degantahay Wales Cardiff Surrey meelahaas laguma ogolo but North Ireland haddaa ku nooshahay aa u dhalato wadankaas waa buuxsan kartaa Vietnam adigana ma buuxsan kartaa u dhalato wadamadan aan kuu soo sheegay soo hadda dib waxaa ugu laabanaynaa page-keena su-aasha waa ka jawaabtay adiga waxaa tahay Soomaali intaasoo wadan kamid mitid Brazil India Peru yaa kamid mitid soo marka wadankii sidaasaa tiraahday su-aashiisaasaa ugu gudubtay hoosaa aadnay footadii haddayna dhibaysay halkaa ku dhufo footadii way kuu diyaarsantay haddaysan kuu diyaarsanay footada way kusoo celinaysaa footada markaa ku diyaarsatid ku dhufo miday ahaatabo mid ku ahaadabo dhaqsii footada uu kuu qaatay hoosaa aadaysaa hoos u bax footada markuu kuu qaatay halkaan iska buuxi markaa halkaan footada waatana meeshaan magacaaga ku qor magacaaga oo dhammaystiran sida aad tahay iyo waxa aad tahay iyo meesha ahaydbo suu u samaysay magacaaga ka bilaab haddaa tahay sayid cali sidaa kuu sheegaaye xasan Suleymaan saasaa leedahay saasaa ku buuxinaysaa haddaa aad tahay magacii kalene Salmaan Maxamed Nuur saasaa ku buuxinaysaa soo markasta Maxamed Nuur naanees tusaale ahaan waxa uu sameynayaa Soomaali si aysan ugu qaldamin hadduu magacaaga shahaadasan ay kugu qoran tahay sidaas ku qor af Soomaaliya kugu qornaado bad English way fahmaan waxa leedahay magacayga markii Soomaali loo bedel sidaa noqon laakiin erayadan haddaa tiraahdo shahaadada ay kugu qoran tahay Salmaan Maxamed Nuur oo adigan magaca inta ku qortid Salmaan Maxamed Xuseen haddaa ku qortid dasmin magacaasa ka tagtay dhex kaas waa naanees kan uu raacaya ha ka tagin sayid cali haddaa tahay caligaaga hal magac ka dhigo address meesha ku noosha wadada waa bari street iska dheh hadda waa bari wadada waa bari okay degmada aa ku nooshay magaalada aa ku nooshahay Muqdisho degmada aa ku nooshahay Xamar Jajab Banaadir misena waa bari Banaadir so waa bari Banaadir waa degmada iyo gobolka waa israace gobolka waa halkan waaye degmadan halkaan ay kaga qoran tahay wadankana waa raacin kartaa Soomaali but
meesha wadanka waa raacin kartaa, Soomaaliya waa sii dhigi kartaa daartid, Soomaaliya waa sii raacsan kartaa. Zip code ma lahan, so marka zip code ma isticmaalaan Soomaalida, waxay isticmaalaan like adino zip code aa leedahay, zip code ma isticmaalaan. Post code aa ka wadaa, zip code waxaa isticmaal Mareykan, Europe aa isticmaasha post code, ama Soomaaliya ma isticmaalaan waxaas oo dhan. Wadankii aa u dhalatay marka waxaa leedahay Soomaaliya, Soomaaliya leedahay. hadda marka wadanka u dhalay Soomaaliya, marka wadankii ku nooshaha lagu dhahay adigoo Soomaali u dhalatay waxa ku noolaan kartaa Kenya, waxa ku noolaan kartaa India. soo markaas wadanka aad ku nooshahay sheego si aysan kaaga qaldamin. haddaa Soomaali ku nooshahay Soomaali leh, haddaa India ku nooshahay India dheh, haddaa ku nooshahay Kenya Kenya dheh. soo hadda waxaa leeyahay Soomaali because qofka Soomaali iska digayna qofkan. soo Soomaaliya dhahday, phone number-kaaga gelinaysaa, phone number-kaaga buuxisay, iska dhe phone number-ka iska geesho. okay, hoos iska sii aad. haddana waxaa gelinaysaa email-kaaga, halkaa gelinaysaa, haddana mar labaad ku celinaysaa. waa halka meeshan labada meel ugu daran oo lagu buuxiyo waa footada sawirkaas ku dhibayo oo lagugu soo celinayo, iyo halkan meeshan oo waxbarashada been ha ka sheegin. haddaa shahaada haysatid waxa u haysatid sheego. primary haddaa soo dhamaysay primary dheh, dugsi dhexe haddaa soo dhamaysay, dugsi sare haddaa soo dhamaysay but haysanin shahaado, waxaa leedahay high school no degree. haddaa high school soo dhamaysay oo shahaado haysatana waa halkaas ku dhufanaysaa kaligaas. soo marka haddaa jaamacad aa dhamaysay, galaasida jaamacadda aa dhamaysay halkaas. haddaa jaamacadda aa wada dhamaysay shahaado aa haysat, halkaas kusii dhufanaysaa. wax walba aa dhahdid shahaadooda waa lagu weydiinaa caddeynteeda, wax kasta meesha aa ku buuxsatay waxaa lagu weydiinaa xagga. haddaa guursatay ama aa guursan halkan unmarriage, soo ma guursan, daas micnaheedu waa ma guursan. haddaa guursatay marriage aa tahay, xaaskaaga ay ku nooshahay USA Mareykanka ay ku nooshahay, halkaas ku dhufo. haddii aadan furtay xaaskaagana halkaa ku dhufo, haddana caddeynta la imaaw oo waraaqiya aa ku furtay xaaskaaga. soo haddaa laakiin unmarriage badanaa saas unmarriage iska dhaxan, unmarriage markaa iska dhahay. hadda adigoo unmarriage dhahe waxaa lagu leeyahay, waxaa lagu weydiinaa ilmo ma leedahay, wama guursaninaysa ilmo ku lahaana waa su-aasha. sababtoo gaalada waxay aaminsan yihiin ragga inay ku boyfriend girlfriend inay ilmo iskaga dhalaan. soo annaga diinteena saas ma ogola, bad ayaga waxay aaminsan yihiin waay. soo waxa iska leedahay maxaa hadal ku daalinay, zero iska dheh, ever ha iskaga qorto continue dheh. continue markaa ku dhufatid waxaa kuu soo baxaayo page-kaas soo dhahayo successful san, waxaagii oo dhan information-kaagii oo dhan waa buuxisay. markaa buuxisay picture wax kaama soo celin. soo magacii waa kana, inta anaa ka tiray dhexdaan si qofka loo arka magaciisa. kan confirmation number-ka waa qeybaan ka tiray, intaan ma ahan. waxaa lagu baahan inaad dhamaystirtid oo markasta confirmation-ka number warqadan sida hadda u diyaarsan inaa ka qaadid, printer ku dhufatid, haysatid ilaa waxyaabahaas confirmation-ka markaas lagaaga baahan sanadka dambe markii la gaaro si confirmation number-kaas u buuxisid. soo fadlan la soco qeybaha kale iyo dhamaystirkooda. haddaa su-aal iyo jawaab haysid misna jawaab aa u baahan tahay, hoos commentiga kusoo qor. janaalka Daadir Xuseen Dej subscribe ku dhufo. soo salaamu calaykum.